ما في هذا شيء فرق دبر كيس اللي سوبر في مع الله دبر كيس اللي سوبر ما شاء الله سوبر عاوي يجعش لا لا ما بس ما يسمع لا شو هي يسمع حسن وكان اكستاك نكنو ما يسهل لك نكنو مركو حد كده ما يهارنا بداش من بعد الدار وصول قبل الله غير يا باشا كلام جبنا ولا حمدين وش علينا هي قراب هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت هلكن waxaan u soo nabad inaan ka hadalno sifada sharciga xoriyay Ali Aadan Muumin aniga Abdurrahman Xasan ahna qareenka Ali Aadan Muumin wakiil ugu ah dacwadan hadda loo haysto Mr. Ali Aadan علي آذن مشان إلى واتنكي بيشان يا ورقة CID أسرة قطع إلى هاي وحاول كربا CID هو بانك دمباريستا كبوليس كاتب ورقة داس أيا الله صوري علي آذن أيا الله صوري أسيقول له آذين أيو فيسبوك يا وحصل لك امتحان كي الدولة دان حياة هذه أسيقول له آذين أيو قد بدأ سلوك آذين أيو قد بكلا يا علي آذن الله يري si sharaf leh ayuu ku tagay sharci ayuu u hoggaansanay CID ayuu tagay mar alla markuu tagayna horaa laga xiray waa la xiriir maray nidaamka xiritaankiisa markii Ali waa loo yeeray su'aalihii la rabay in la weydiiyo ahayd Ali haddii loo baahdana markaas kadib warqad maxkamadda waaran loo soo qaatay si loo xiro cadaalad loo geeyo ma aysan dhicin hase ahaatee waxaa aad iyo aad aan ula yaabnay warqadan Ali 25 yaa loo soo qoray hoggaanka socdaalka CID soo qoray Alina 26 ayuu Boston ku sameeyay oo ah imtixaankii aan hayaaya oo warqadaas ah 26 uu sameeyay su'aasha taagan waxay tahay Ali ma waxay booliiska ogaayeen hoggaanka socdaalka ogaayeen Ali inuu dambi gali doono warkaas oo soo wada miyay ogaayeen taasi ayaa su'aal ka taagan tahay sababtay tahay خفكان مواطن كا ورقدان أو لليه وسو بوستجري إيه ورقد حريتان كيس أو لليه وفي عدي اللويري واسمه وافق سنة إسكو تاريخنا معهن وحنا هالرئيس يريتان كيا هالرئيس تاسوحين وقت الشك على ملاي كريم إن على سيف الشرع الدراء على الكبرية علي CID waxay geeyeen damabaarista waxay geeyeen gabadha gobolka Banaadir ay horgeeyeen eedihii loo haystay iyo qodobadii loo haysto waxa 215 219 220 267 intaba cali waa lagu waayay damabaarihii garsoorihii wuxuu ku qanci waayay in dambiyadan cali galay dambiyadan ay yihiin dambiye sax ah hasa ahaatee garsooruhu wuxuu amar ku dhiibay
maadaama cali uu yiri imtixaankii haya hase ahaatee cali uu sii daba dhigay anigoo ilaalinaya booliiska ayaan qaybinaynin garsooruhu wuxuu amray ama ku dhiibay in cali la sii daayo marka imtixaanku dhammaado warqadaasi mar alla markii la sii daayay garsooruhu warqadii ayuu qoray waatan uu ku leeyahay cali ha lagu sii daayo marka uu dhammaado imtixaanka hase ahaatee waxaa la yaab leh cali inuu weli xabsiga ku sii jiro waqtigii imtixaankana la galo cali wuxuu ku xiran yahay sife sharci darro ah qaanuunka ama fasireen booliiska CID-da waxay u hoggaansami waayeen amarka maxkamadda soo saartay su-aasha taagan waxay tahay haddii amarkii maxkamaddii soo saartay booliiska ay u hoggaansami waayeen booliisku maxay yihiin ma booliisku maxkamadahay ka sarreeyaan oo amarka maxkamadahay awood u leeyihin inay jibiyaan asahaate cali sife sharci darro uu ku xiran yahay waxaan codsanaynaa anigoo ah qareenkiisa cali aadan kana wakiil ah arrintaana SJS ay soo kala saaratay Somali Journal Syndicate ay soo kala saaratay galaatay in maxkamaddu la sii daayo booliisku waxaan codsanaynaa inay u hoggaansamaan amaawiirta ka soo baxday maxkamadaha haddiise booliiska aysan u hoggaansamaynin amaawiirta maxkamadda ka soo baxday ayadana waa hawl kaleeto annaga ma garan karno cali sife sharci darro uu ku xiran yahay cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cali ha la sii daayo sife sharci darro uu ku xiran yahay booliiskuna u xiran yahay amarkii garsooruhu soo saaray maxkamadda ku soo saarana waa kana wabilaahi tawfiiq waa mahadsantihiin dhammaantiin garsooraha maalintuu soo saaray amarka garsooraha 29 soo saaray amarkan waxay ku aadaneen arbacadii ayuu ku aadanay 29 taariikhda maadaama garsooruhu amarka uu soo saaray cali waxay ahayd maanta la sii daayo marka imtixaanka dowladda oo dhammaado hase haatee lama sii deynin weli cali wuxuu ku jiraa gacanta booliiska sife sharci darraan uu ku xiran yahay aan dastuuri ahayn ayuu ku xiran yahay waxaana meel looga dhacay xorriyatul qowlka dastuurka jabtarka labaad kaga hadlayo artikelkiisa 18 oo ah freedom of speech arrintaas ayaa meel looga dhacay cali sife sharci darro uu ku xiran yahay amar maxkamadeeda lagu sii daayay ani ma garan kara sababaha booliiska ay u sii haystaan waad mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq Biri, sabi, saarkiis ha kor saaran yaa kor rabsi. انت لايف اكو جير waxaa codsanaynaa xagga aan camirno ba garan taga حاجه ماما معرفوا حسنو هو يا جانس بعد هذا هو ما حد ربنا ينسد ترى سمع Go. هذا هو النور Go. بسم الله الرحمن الرحيم هل كان كلامك عايز استاذي نعم ولو كنت حبس سيدي ولو كنت حرين بشر الدراع انت اي كل اكيد بغض سجد اي وكنت اللي سيده
waxaan rabaa marka halkaan isugu wacnay inaan dadka aan u sheegno in cali aadan ku xiran sharci darro dalbanaynan in si cadaalad loo sidaayo sideedii saaka markaan u tagnay oo aan damacnay inaan cali aadan si xorriyadiisa gudaha helaan soo dhaweyno waxaan ula sheegay inaan haba yaraatee aan la arki karin hataa iska daa inuu xorriyad hele waxaan lagu yiri maari kartaan laakiin wadahal kadib waxaan ula ogolaaday inaan la sheekaysano la fadhiisano mar waxaan baaraynaynaa in maantay guurka ayadu ahayd inuu cali xorriyadiisa helo inuu weli xorriyad la-aan yahay markii horena lagu xiray si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn cali aadan waxaa loo wacay sayidida looga wacay si su-aalo loo weydiiyo asagoo sugaayo su-aalo weydiin ayaa wuxuu la kulmay xarig in xarig lagu bedelo garsoorka markii la geeyey gobolka banaadirna waxay xukumeen in la sii daayo cali sii dayntii inuu amarka maxkamadda fulina wuxuu fuli leeyahay waxaan tuhunsannahay marka in taliska booliiska uusan dhexdhexaad ka ahayn arrinka cali aadan muumin waxaan kaloo tuhunsannahay in arrinkaani lugaha kula jirto hay-adda fulinta gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana codsanaynaa hay-adaha cadaaladda iyo kuwa isla xisaabtanka sida baarlamaanka iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo kuwa kale ee madaxa bannaan ee ogol madax bannaanida dadka iyo xorriyadda hadalka inay soo falgeliyaan arrinkan si loo helo xorriyad saxaafadeed oo madax bannaan. maanta markaan u tagteen maxaa laydin maantay markaan u tagnay CID-da maantay maysan jooginin talis maysan jooginin oo talis maana haleelin laakiin dhallinyarada meesha joogtay waxay noo sheegeen cali inuu xarig yahay ayaan loona sheegin inuu la fasaxaayo aysanna soo gaarin go'aanka maxkamadda waxaan dib ula xiriirnay hay-adda maxkamadaha waxaa loo soo diray warqaddii dadkii keenaya way ku keeneen waxay warqaddan waa idinkan 29 in soo gaartay way u filaadeen waxay dhahaan annaka amarkaas mana soo gaarin hoggaanka taliska laanta sayidida u taga waxna kama galnaano فرحي هذا لنا نمعي فرحي هذا لنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم ما تصحى من هذا المال والنشاط والنظام والنشاط تطوير المبادئ والسجون وحرسكوني محمد صاحب الشغل والجنون وحرقنا حرق الروح الاستي ورابط على وما انت اخلاق ستشهد عندما Soomaaliya waxaan dalbanaynaa in cali xorriyadiisa loo soo geliyo iyadoo loo maraysa sharciga waafaqsan dib loogu soo oogo wixii dacwo ee loo haysto una ku garbixi doono laakiin hadda in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo ما تتكلمش انت مين بغطينا وحبنا نعمل شوف فرحيه قدوه هاي فرحيه هاي محمد عدوه sidoo kale CID waxa ka dalbanayna inay ilaaliyaan amarka soo baxay isla markaana cali ay siidayaan cali si sharci darro ah ayuu xiran yahay annagana haddii aan ay wariyaasha ku howlgala magaalada muqdisho waa ka xunnahay in cali weli xabsi lagu sii hayo waana cambaareynayna maalmaha soo socda ma ogolaan doono anaga in cali xabsi lagu sii
dowladana waxaan ka dalbanaynaa in si degdeg ay kusoo dayso cali aad هلا